barta xiriirka bulshada ee TikTok waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya gabdhaha Soomaaliyeed. waxna taageerta qasab wiilka malahan qab qalbigu waa xabxab ku qabsana gabadhii ku ixtiraamana hab qalbigayga markay ku shidayto dadkayga ee noqday garab wariyaa edad kalab horta keentay dadigiya lab kuwa ka daran baan dhulka ku jiido web waxaa taalaga aiga barabaqan saqajaan ciyaal jamal jaan akala jaan tim sharma amar naba majabaan wax joogan ilaa matabaan qofkee jabiyaan lama kabaan. tartan ayaa loo qabtay sidee buu u dhacay tartankaas maxay tahay gunta khilaafka muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeyso uu channelka ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon magaciiguna waa Yaxye Maxamuud Maxamed waxaan ka codsanayaa inaad ugu soo biirto abo waxaa rabaa dhar madow iyo foto feeg ee inaa xaflad ka qayb qaataa rabaan oo ma isii kartaa lacag ma isii يا درمدو فيغا والله بلا طلب قدام ملاش كو اركو مردن يسوحل هاي بلدا ربا بلدا القدنو بلا سوق طالع انا مشكلة عاد شركة أعوذ بالله أعوذ بالله شيطان كنارو شروها كرع عدم هرت حلم حاقتهاي نعس كال دقم حاقتهاي دعس أقص مقص وحتهاي دقش قف كستاكو إن تهاي قص إسعدي يصير دمركي قص فيري أسجا كل وافس وده داروين جارن كل هرمركو دوارو ما ينرج أدوكو سوالي واحد تهاي دس waxaan ka bilaabay alif wax male adowga dhagartooda dib male fankaan uma bana cid kale welcome sharma boy mar kale muusigayga wuxuu gaaray dal kale ayada sagaal mar ka tasho loo diray ciyaar sugnimo darteeda loo xiray ka tasho ma gashay sagaal waa soo qoray ka tasho naag waalidkeeda xirtaan ma aniga tirsanayso ani shii edab ha yeelato gurigeeda edab ha u fadhiso waxay tahay muddo toddobaad ah waxaa baraha bulshada haysta muuqaalahan jabaad caay iyo mana sheegasho ah taas oo u dhaxaysa gabdhaha isticmaala barta TikTok gabdhuhu ay dhirirtu dhex martay waa laba koox waxaana ay kala yihiin Habi Ahmed Gabriel Maayo boqorada isteelka boqorada Kaaraan Xooshay iyo sidoo kale kuwa kale oo dhinacyadaas la kala safan maxaa ayay isku hayaan waxay heena isku dagaalanay Soomaali Habi iyo Gabriel maxaa gabadha qoraxda istaalka gabadha Maayo mise waxa ka wada boqorada istaalka Habi Gabriel Maayo boqorada isteelka boqorada Kaaraan isteelka Xooshay Bitaash Sumay Qurux laba group miya marka mise waa mid laba isku haystaa laba group okay group kala jirtaadi أنا قريب ما لقيت المعلم ده. mid ka mid ah gabdhaha isticmaala barta TikTok taas oo goob ganacsi leh waxay sheegtay inay bixinayso abaalmarinta gabadha TikTok ugu shidan tani waa xudunta dagaalka gabdhaha guuleystay waxaa ku jira boqorada isteelka boqorada Kaaraan iyo sidoo kale Shushu Maryan Axmedey iyo Mawadayar balse garabka ay hogaaminayso Gabriel Maayo oo ay la safan tahay Habi Ahmed waxay ka biideeyeen tani ayagoo sheegaya in si cadaalad darro loo xulay kadibna waxaa dhacay in barta lagu wada xiriiro TikTok la isku cayo wallahi gabarnimadeeda xitaa naag ugu tartan karto ma ku jirto meesha asalaamnimada la soo qaatan warnaagti naagina barta wallahi aan go'aan ma faamino sharafta ay gabara gabarnimadeeda xitaa naag ugu tartan karto meesha soo istaagto war aan la labadan ma biribibo maqaaxida shida maqaaxida lacag waa ma fahamtay maniya keenan islaameed ina u tagana abuu caaw cashada iga dixmadi yani dadkan ma lama saari ma faamino qof walaalkii wacdana luqma ka kuhayso cunuga wacalka abuu yeel quruxay bilaasha quruxdu u sheegatay abaalmarinada ayaa la tilmaamayaa in qaarkood lagu siiya lacago ay dhibteen taas oo qiimaheedu lagu sheegay $80 balse cadeen buuxda tani looma hayo hadiyadii aan oo sii socdo tan waxa ku sii maadaama ninkii waxa isku fiican tahay thank you tan waxa ku sii maadaama only me and everyone tahay okay tan waxa ku sii maadaama isku qabiil nahay thank you adi $80 nima dhiibin taalantina maliyad isku qabiil lama nihin waxa uga staa يا أنا عسمات فتي درمد وصاقد إن هذا ما دربلنتي يجبحي وعسو عاد isku qabiil maniina bah
وما سنت قرحي مدام إسيسي بلاد بدل ما أنا تالنت لهين أنا ولا شيء تالنت لهين أنا كسينا أنا ديار وما كيف تدي يسديتن دوري مرضي مدو أنا ديار لا حقيقة قشنا عاجي وحشة هي يعني بلاد ما شرفك ما قرش كي قالوا وقت يا خطر حكسوا بحكم تندور يا مرضي إسكابا داف كنت تندور هاي بس هاي وايا بلاد داكسينا هاي عيبين سلام هاي قبل بلانتاي ربي قال رصاص كبريه كراح يسو رانك كارها بين الله boqorada Kaaraan waxaa ka soo muuqatay muuqaal iyadoo wacd ku maraysay in talaab ay ka qaadayso Habi Gabriemaayo tani waa xanuun kale imaaragtay aniga nid gurigeyga waa kama baxo ciirkada bato iyo haylle sayyaas wala fan toogash ala furada duwaya sayyaas ma qidide ما عرفت تفير ارتصم عبينا أقاشي وضيع inkastoo Soomaalidu ay yihiin dad aad u dagaal jecel marka la fiiriyo siyaasadda baraha bulshada iyo TikTok-ga dhalinyaradu sidaas ayay waayidii dambe ku sii kordhayeen dagaal iyo xiriirka baraha bulshada ay sii xumeeyaan inamada Soomaaliyeed ayaa ahaa kuwa kaliya dagaalkooda baraha bulshada si weyn loogu hadalhayn jirin waa gabdhahe balse xilligan wiilasha ayaga ayaa ka dagaal badan dhaqanka sii xumaanaya TikTok-ga waa fadeexad weyn oo bulshada Soomaaliyeed gaari karta waxaana jirta in gabdhaha qaarkood ay isku deegaan yihiin taas oo dhici karta in dirir ay dhaxmarto gacan ka hadalna u dhaco sida gabadhan ay ku baaqayso talaay ahaan ay sidan u soo jeedisay balse waa laga haboonaa jooga waa isku ooyaya ilaahay ugu dhaashado macnaha aragaas xigmad la'aanta soo waa isku raadinayseen maxaa hayseen oo macnaha awar isla nugu siiniyaa xigmada meesha la joogteen waxaan sheegaa anaga magaalada ka seexda mid kale anaga habeen imaan sano soo baxaysan waxaan sheegaa muqdisho isla joogtaan $2 bajaaj ka xataan inuu soo diray israasana magaalada iska dhiciyana aade wadinka anaga hortan ku buuqbuuqay fliin yahay wallahi bilaa wadnaha geedkaan leeg anaga waxaan la soo kadigayaa anaga macnaha khatar oo iscaan iska xidhi kara maxaa isku caaynaysaan maanta dhilisho muddo isku tilmaamaysan isku meel baba joogtaane intaas qabataan mid heli karto macnaha awood inay madaxa ka soo garacaan ka soo garaacdo أنا كنت أنا يا حمد أنت نروح دقائق نعرض بنقول عليه وابناك حنا نيجا يجسوا عليه ما كيسوا ما كان يجسوا عليه سوالي وابناك حنا أنا قبل حد بط ربنا أول سكوا هلا ما نوصي أنا قال كسيت أجنا عض بنقول عليه حك أنا نيجي من بدني لا ما أقولني شفت على نيجا قاعدة barta xiriirka bulshada waxaa markasta lagu arkaa dadyow Soomaaliyeed dhalinyaradan u badan kuwaas oo dirir ama erayo ay ku jiraan hanjabaadyo isku marinaya balse ma ahayn sidaas in loo dhigo xiriirka baraha bulshada dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee Soomaaliya 75% waa dhalinyaro sidaas oo ay tahayna waxa ay sameeyaan dhaqano midka kale u diidan yahay dunida casriga markaad eegto dhalinyarada ayaa horumar ka sameeyay sida baraha lagu xiriiro Facebook oo kale waxaa leh nin dhalinyaro oo Mark Zuckerberg inta wiilka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ama gabadha ay ku fikir lahayd abuuridda waxyaabo dadka kale aysan baahin waxaan baraheena bulshada ku sameeynaa ama aan dad badan ku helno sidii aan u soo muujin lahayn muuqaalo qaaban muuqaalo hanjabaadiya caay laba dhalinyaro iyo sidoo kale wax dhaqankeenaba uusan ogolayn tani ma ahan ugub waana wax waliga dhici jirtay gabdhaha Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay oo tani ay kale ay dhacdo dunida casriga waxaa jira dadyow aad saameyn ugu yeeshay baraha bulshada qaarkood waa kuwa asaasay TikTok-ga waxa sameeyay wiil dhalinyaro oo reer China sidaas oo kalena baraha kale ee xiriirka bulshada badankood waxa abuuray dad dhalinyaro dunida caalamkana lagama arko dadyow isku caynaya baraha bulshada TikTok-gu waa aalad loogu isticmaal badan yahay xilligan marka la fiiriyo gudaha dalka iyo dibaddiisaba Soomaalidu aad ayay u isticmaashaa waxaana jirta in qaarkood ay ku xiran yihiin dad kor u dhaafaya milyan Maryan Axmed Shushu Abdullah iyo kuwa kale oo Muqdisho ku sugan waa kuwa ugu badan ee barahani ka sameeyay xiriir aad u badan tani waxay ku baaqaynaa in la dhaxgalo lana xalliyo tabashooyinka ay kala qabaan gabdhaha Soomaaliyeed talooyin guudna waxaan ku oranayaa baraha bulshada ma ahan goob lagu soo bandhigo waxyaabo qaaban jirka gabdhaha iyo sidoo kale goob la isku cayo balse waa goob lagu soo bandhigo aragtida kugu jirta iyo fikirka in dad kale la wadaagto aragtidaada inoo reeb daawade nabadgelyo